Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal, maanta waxaynu ka hadli doonaa sida ugu fudud ee ardayga u diyaarin karo imtixaanka. Sideen u diyaariyaa imtixaanka? Waa su'aal inta badan isweydiinayaan ardada xilliga daraasada ama xilliga imtixaanka soo dhow yahay. Ma waxaa jira in mid inaga mid ah oo aan rabin in uu kaalin muuqda ka gelin waxbarashadiisa? Dabcan, jawaabtu in aan wada guulaysano waan rabnaa, laakiin inta badan fasalka waxaan ku aragnaa arday dadaala oo kaalin fiican gala iyo mid iska dhexdhexaad ah iyo mid liita intuba. Haddii aad weydiiso midka kaalinta fiican ku jira, waxa uu kuu sheegayaa akhriska joogtada ah iyo dadaalka uu sameeyey in ay sabab u ahayd guushiisa. Haddaba, inaad wax akhriso oo si fiican u daraasiso casharrada waxay u baahan tahay shuruudo dhowr ah si nacfiga guusha u gaarto. Ugu horreyn, niyadaada saafi ka dhig oo qalbigaaga fur. Xusuusta Alle yaysan kaa marnaanin. Ilaah wuu kuu fududaynayaa dariiqa cilmiga insha Allah. Isu diyaarinta casharka. Dooro waqtiga ku habboon akhriska, gaar ahaan waxa aad u fiican aroorta hore oo xilligaas maskaxdu ay degan tahay. Dooro meel ku habboon wax akhriska, iftiinna leh, kana fogow buuq iyo shanqar intuba lagana helo kursi iyo miis. Samee jadwal wax akhris, waayo jadwalku wuxuu kuu ilaaliyaa waqtigaaga, maskaxdaadana nasiino ayay u tahay. Dooro saaxiibo fiican oo akhriska kugu dhiirigeliya, oo ka dheeraaw ama ka fogow kuwa caajiska iyo ciyaarta badan. Isku day inaad afka ku dhufato raashin fudud oo jirku nafaqo iyo tamar ka heli karo. Isku day inaad biyo badan cabto, waayo biyaha waxay saacidayaan fududeynta wareegga dhiigga oo maskaxda ayna fududeysa akhriska. Iska yaree cabista kafeega ama waxyaabaha kale aashitada leh, caafimaadkaaga waxyeeleyn karaa. Haddaad daal dareemayso ama aad daashid, xoogaa iskala bixi oo jimicsi fudud yar qaado. Inta aad akhriska ku guda jirto, hal mar isha soo wada mari casharka si guud si aad u ogaato inta casharka uu ka kooban yahay. U qaybi casharrada qaybo waaweyn ee qayb kasta dhowr qodob u samee. Isku day inaad si buuxda u fahmayso waxa aad akhrinayso. Isku day inaad xifdiso, waayo waxa dhan ay guusha soo hooyiso waa xifdiska. Balse iska ilaali inaad xifdiso adoon fahmin, waayo waxay keentaa dhib iyo murugo iyo caajis. Xalli dhammaan su'aalaha casharraha ka dambeeya, taas oo qayb ka qaatay in ay kuu soo koobto fahankaaga guud ee casharka. Soo koob ama muraajacee dhammaan wixii aad ka soo baratay casharkaas. Weydii saaxiibadaada jawaabaha su'aalaha kugu adag. Muraajacada habeenka imtixaanka soo gelayo waa muhiim, laakiin ma habboona in hurdada laga dhafro. Waa in aad xilli hore seexataa si aad aroorta u soo kacdo una akhriso. Waxaan rajaynayaa inaad wada fahamteen dhammaan shuruudaha. Waxaan kaa codsanayaa in aad ii saarto subscribe, share garayso, like saarto, comment fiicanna ka bixiso. Waad ku mahadsan tahay.